بسم الله الرحمن الرحيم. أنيقو أحمد نور محمد عبد الله دمان أمد الصوماليات وأن سلام إياه غارهان دادك إدغيسانا إياه فضلا warbixintan cad ee aan dhiibi doono qofkii arkaahi ha sheer gareeyo si ummadda Soomaaliyeed gabi ahaan ay u gaarto. waxaan intii indhawaala abadaba socday shirka Kismaayo hadda ku gabagaboobay anoo ra'yigayga tooska ah iyo midka waxgaradka oo dhan ay la qabaan ka soo baahinaya. shirka asaga ah dadka shanta ah ee maamul goboleedyada barasaabyada ka ah ee aan madaxweynayaasha ahayn iyo ummadda Soomaaliyeed waa kala badan tahay. ummadda haadaan bay ku rideen, ummadda god bay ku rideen. dawladdu inay dhaqaaqda lama rabo, al-shabaabna inay sii jiray rabaan oo ay doonayaan oo dalku uusan awood yeelan. waxa weeye arrintaa iyada ah ma noqon karayso mid ay ummadda ugu suubinayaan wanaag, wax fiican ee qiimo leh ee darajo leh ee ay la damacsan yihiin ummadda Soomaaliyeedna ma jiraan. nin walbaba waxa uu rabaa maamulkaas inuu halkaa ku caburiyo oo halkaas ku haysto oo meeshuu rabo uga adeego. marka waxaan leeyahay 5 qofood iyo ummadda Soomaaliyeed waa kala weyn yihiin. magaca Soomaaliyeed cayaar ma ahan. ilaa raas Kambooni ilaa raas Casayr dadka jooga 5 nin oo danahooda gaarka ah fiirsanaya maya. wixii la idinkaga bartay, aqligii la idinkaga bartay, garaadkii la idinkaga bartay waa in runta loo sheegaa. dawladda la doortay ee aad iyo aad dalka hadda wax badan uga bedeshay xoogaagii yaroo ay joogtay yaan layna ka duduminin. waxaan dawladda u sheegayaa qodobka 2. dawladda maxaa la gudboon? dawladda waxaa la gudboon inay ogaato oo ay ku taamila qaadato oo ay ku tallaabsato awoodda Ilaahay siiyey. waayo markii dawlad laga hadlaayo 3 waxyaabood ayaa la cuskadaa. 1 waa in shacbi ay leedahay, waa inay sharci ay leedahay. midda 3aadna waa inuu maamul jiraa calaamadiisii wata. calaamadda aad wadataanna waxa weeye waa anthamka iyo calaamadda kale ee lagu yaqaano qarannimada Soomaaliyeed. calankii baad haysaan, mas'uuliyadiisii baad gacanta ku haysaan. haddaba dhulkii iyo shacabkii iyo calaamadii iyo sharcigii intaba gacantaad ku haysaan. amar adag dhiiba. baarlamaanku midka hoose iyo midka sare tallaabo adag waa inay qaadaan. waayo shacbiga ayaga ayaa ka mas'uula oo magaca shacbiga ayagaa gacanta ku haya. horena waxaan u sheegay aniga, dad badan oo aqoon-yahaniin ay u sheegeen dalkan sharci adag ha loo sameeyo oo degdeg ah wax looga qabto. arrimahan jiro oo dhanna lagu kala gorfeeyo meelna la dhigo. waxa weeye halkan waxaa la doortay nin madaxweynayaasha anigu barasaabyada aan u aqaano looga dhigay hormood iyo nin ku xiga
ayaa la sameeyey halkaa waxaad ka garanaysaan dowladdii oo dhan baaba la tirtirayba caalamka dowladdu sharaftay ku lahayd iyo magacay ku lahayd iyo soo dhoweyntay ku lahayd nimankaanaa baabi'iyey waa la tirtiray waa inaad saas u aragtaan halkaa waxaa la rabaa dowladdan sidii lagu baabi'in lahaa sidaasaa la yeelay marka waa in laga taxadaraa shantaa nin iyo waxay wataanna ummaddu waa inay tustaa shacbigu waa inay soo baxaan waa inay kacaan waa in wax la tusaa waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa oo markiiba tallaabo qaaday reer garoowe markiiba tallaabay qaadeen dadkoodii guurtiga ahayd ee waxgaradka ahaa tallaabay qaadeen kismaayana dhaqdhaqaaq bay suubiyeen dhaqdhaqaaqa ha la weyneeyo nin aan garanayna ma leh shantooda nin aan garanayna ma laha haddii ummadda soomaaliyeed sharaf iyo karaamo iyo haybad ay rabto waa in shantan layska qabtaa haddii kale waa inay istaakfurullaystaanoo danta ummadda ay raacaan oo ay cagaha dhulka dhigaan ninna ninkaba weyna reer garoowe iyo nawaaxigeeda waxaa ku nool markay ugu yar tahay 1 milyan iyo hidhidhi iyo 2 milyan ku dhowaad haddaysa ka sii badnayn waqooyi sidoo kale bay iyo bakool sidoo kale jubbada hoose sidoo kale meel walbaba sidaas baa Soomaali u dhooban tahay 5 nin oo hunnu u socda oo dowladdii dhexe ee la wada doortay burburinaya ka kacayni leeyahay ka kaca ha lagu kaco nimanka tallaabo adagna ha laga qaado waxgaradka sidaas ayay leeyihiin waxa aan aad iyo aad aan ayadana uga hadlayaa nimanka culimaauddiinka ah ee ilaahay wax u dhiibay ee ayaga laftigoodu aqoonta aad u ballaaran rabbaaniga leh awalna horey baad u wadeen wanaagga Soomaaliyeed aad ka wada hadlayseen culimaduna waa inay kacdaa in dheergaradku iyo aqoonyahanku waa inuu kacaa yaan arrintaa laga aamusin yaana la fududaysanin dowladdana waa in ay keentaa qodobo adag ee dhabta ay ugu sheegayso yaan la kala gabanin run ay run waxa weeye u qudbeeya shacbiga u qudbeeya baarlamaanka u qudbeeya ha lagu kaco nimankan dariiqa toosan ha ku tooseen hadday ku toosi waayaanna kulli ha laga wada tuuro dalkan Soomaali baa iska leh min raas Kamboodi ilaa raas Casayr ummadda Soomaaliyeed baa iska leh waxa weeye hal la dhowro karaamada ummadda Soomaaliyeed hooyadii baa bacday caruurtii baa bacay odayaashii baa bacay dadkii oo dhan baa bacay meel walba meedku daadsanaan jiray bad iyo biriba dhibaatooyin baa naga soo gaaray meel walbaba dhibaatooyin baa naga haysta sharaftayadii iyo karaamadayadii baa la dhumiyey caqli iyo garasha loo baahan yahay qabiil looma baahna qurun looma baahna ninkii xun waa ninkii xun aabbahay hadduu yahay waa la leexinaya ummadda Soomaaliyeed baa ka weyn magaca Soomaaliyeed baa ka weyn inaan jirno oo ummad jirta noqono haddii kale dalkan madooni baa la saarayaa dadkiisa dalkan ma laga guurayaa dalkan ma laga baxayaa waxa weeye carabta tan ayadiiba iswaxaysa weyday inay dalkeenna say iyagu u baabiceen inay noo baabi'iyaan bay rabaan dalkeenna in qaarad laga dhigaal rabaa waaniga inay iri federaalkan iyo waxaan oo dhan ha laga baxo ha la iska dhaafo ummadda Soomaaliyeed federaal dad ajnabi ah loo kala suubiyaa kala gaargaar oo kala nooc ah ummad Soomaaliyeed waxa weeye waa wiil iyo abtigi iyo adeerki maxaa loo kala saarayaa sharci adag bay u baahan yihiin waana sheegay sharciga yahay hal raaco waa kutubka quraanka ah qodobadaysa ku yaala oo midba midka kale ka daran yahay hal raaco diinta islaamka lagu socdo nidaamkaas la raaco waxaan ku soo gabagabaynayaa hadalkaygii ummadda Soomaaliyeed ballan baan hore ugu qaaday inaan mar walbaba hadlo intaan noolhayna waa hadlayaa ma arki karaayo qabiil ma arki karaayo qof Soomaaliya oo silic la bado
habartaas cunuga dhashay ee cunugeedii 5 daqiiqo la dilaayo soo walacday soo dhibaatootay soo rafaaday markuu weynaaday xabad lagu dhuftay war waxaasoo dhan waa inkaar weeye ilaa weeye jaahilnimadii baa badatay war iska dhaafa jaahilnimada war dib ugu noqda kutubka quraanka ah war bini aadanka la dilaayo dib ugu noqda ko midada kale dadkan maamulada ah oo intaad roorayo oo kala roorayo oo inta lacagta raadinayo war bari ka fan baad ka qaadanaysaa haddaad wax cunayso wax cun oo meel seexo saxankaad ku leedahay adduunka oo dhan saxanka iyo dharka aad xiranaysaad ku leedahay waxa kalood aruursanayso adeer waad ka tegaysaa berrina ilaahay hortiisaa tegaysaa waxaana inii caddaynaya ilaahay inta garanaysaahi aragtidaasay kulli ila wada qabaan joojiya in leeyahay dadkeenna iyo dalkeenna iyo duunyadeenna iyo waxeenna aan dhowranno waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed culimaadin ku jiro waxgarad ku jiro ee uu ku jiro maxay to baarlamaanka Soomaaliya midkiisa hoose iyo midkiisa dhexe iyo dhammaan gobolada iyo degmooyinka waxa jooga in kulli la wada kaco arrintaasna laga gilgisho dawladdaas maanta noo dhalatayna sharaf bay leedahay karaamay leedahay qiimay leedahay haybad bay leedahay dawladda waa inaanu ilaashanaa waana inaan iska celinaa dadka ka dhibta nagu wada oo u adeegaya carabta rabta batroolka Soomaaliya inaan la soo bixin khayraadka Soomaaliya inaan la soo bixin Soomaaliya ay god ku jirto Soomaaliya dul ay ku jirto isticmaalka dambana uu gadaal ka sii riixayo كعا إن إلهي سوماليا كعا وأحمد نور محمد قفك إن الله الله يا إلهي هين الدورة إلهي هين حفظه إلهي أودينا هيدا توسا أود وحوية وعقلك يا مسكحة ونكسوي وإن أنضت كنا يدل كنا يدو يدنا يوحنا يشرف كنا كل وإن إلى لشنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحمد نور محمد نك إن الله الله يا وإن سلامي